share no wrong okay muxuu ahayto waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood arrinta ka taagan muxuu ahayto gacanka carabta Gulf crisis-ka iyo thank you iyo waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo go-aan ka soo baxay maxkamadda madaxweynaha Donald Trump markii uu soo saaray executive order-ka go-aankii madaxweynenimo uu dadka ku celinaya 7 wadan ka yimid markii hore markii dambana uu ka dhigayay about muxuu ahayto 6 wuxuu sameeyay waa tii la celiyay go-aankii markii koowaad waa haddana mar labaad uu yiri waa soo biyeeyay marka waa soo biyeeyay oo muxuu ahayto waa soo yara bedelay sababtoo ah waxa lagu haystay waxa la dhaho religion qaybta diinta wadankan haba u badnaadaan dadaan muslimka diimo kala duwan haysta laakiin Christianity-ga muxuu ahayto ugu badan tahay haddana saas ay tahay wadanka asaas ahaan wuxuu ku taagan yahay inaan dadka inaan diinta lagu kala soocin ayuu wadanku ku taagan yahay sidaas darteed waa meelaha badankood wadamada waqooyiga muxuu ahayto westiga ah ay reer galbeedku iga duwan yihiin wadamo kaleeto marka anyway history dambe gadaal inaa ugu noqdo ma rabo marka wuxuu sameeyay markii la soo biyay 2 maxkamadood ay celiyay intuusan go-aankii muxuu executive order-kii uusan dhaqan galin muxuu ahayto oo 6 wadan oo laga soo reebay Ciraaq ay muxuu ahayto lagu celinayay oo Soomaaliya ku jirto marka midna waa tii Hawaii ee celisay midna waxaa laga celiyay kii Hawaii soo horeeyay galabuu dhacay waa ta aniga live ma hadna video aan ka sameeyay ma xasuustay anyway waxbaan ka sheegay waa laga wada hadlay kaasa xoogaa intii ugu badneed xitaqeeladii buuqii wixii dhan ay raaceen galabta Hawaii go-aankeeda la gaaray isla subaxaas maxkamad Maryland ku taalana maxkamadii Hawaii ay raacday oo 7 in the morning ayuu soo baxay telefoonku ka soo dhiiqlayo meeshaan ku arkay marka labadoodii go-aan oo labada maxkamadood midna Hawaii ku taala midda dhanka DC ku taala ay go-aanada ka gaareen labadiiba racfaan ay ka qaadatay muxuu ahayd dawladda midna wuxuu aaday maxkamadda la dhaho 9th circuit-ka midna 4th circuit-ka maxkamadda darajada 4 iyo darajada 9aad kala ah ayay kala aadeen marka mid waa tii toddobaadkii lasoo dhaafay go-aan ay gaareen oo 13 judge inta la soo fariistay 3na ay madaxweynaha la safatay 10na ay la safatay muxuu ahayto dadka oo dadkii u doodayay oo go-aankii sidii lagu celiyay waa tii madaxweynuhu uu ka qaatay muxuu ahayto racfaan ayuu qaatay Supreme Court-ka loo diray kayskii labaad oo asagana maxkamadda ku dhex jiray ayaa maanta go-aan laga soo gaaray mar kaleeto oo waxaa la yiri kan wuxuu ahaa unanimous muxuu ahayd waa la isku wada waafaqay waxa marka kii last week toddobaadkii la soo dhaafay muxuu ahayd go-aanka laga gaaray wixii go-aanka lagu gaaray oo madaxweynaha lagu hor istaagay ayaa waxay ahaayeen in muxuu ahayd religion class-ka diinta inaan dad lagu kala sooci karin markay noqoto arrimaha socdaalka ama qof sidii fiisa loo siin lahaa qofkii la keeni lahaa inaan taas lagu kala sooci karin madaxweynuhuna uu khalad sameeyay constitutionally dastuur ahaan taas dar ayaa lagu celiyay tagalabtayto horta Twitterkiisa wuxuu ku noqday kadeed Twitterka always kuwa muxuu ahayd jamhuuriga waxay dhahaan yaan serious loo qaadanin wax weyn ma ahan kan ma ahan galabtayto the actual court ruling go-aanka ee maxkamadda gaartay ayuu Twitterkiisa xilligu soo daayay handle-ka ama magacu uu ku soo daayay everything lagu soo wada qoray oo meeshay ku wada jireen oo muxuu ahayd ku yaaleen Twitterkii marka hadda madaxweynaha telefoonkan intuu qaato uu saan ka siinay 24 saac kiyaa kara fara badan ayuu u keenay sababtoo ah meel fog balooma doonayo wixii muxuu ahayto la rabo in looga soo horjeesto marka ka bacdi Twitterka ayaa la isticmaalay marka isku go-aan ayay gaareen oo madaxweynaha muxuu ahayd injectionkii sidii ayay u celiyeen oo go-aankii ahaa hal la holiyo oo lama dhaqan galin karo sharcigan isku si ayay u sameeyeen laakiin laba waday kala mareen tii la soo dhaafay oo toddobaadkii la soo dhaafay go-aankii ay gaadhay wuxuu ahaa in muxuu ahayto lagu celiyo diinta isticmaaleen kuwaana waxay isticmaaleen inuusan madaxweynuhu awoodda ah
inuu go-aan soo saaro dastuur ahaan sharcigan uusan lahaynba oo muxuu ahayto uu hal qof uu yahay arrinta immigrationkuna ay hal entity ama hal qof ama hal waaxo dowladda ah sababtoo ah madaxweynuhu executive branchigu madax u yahay oo dowladda qaybta madaxweynaha aysan hal geesa kaliya uusa saarnaan karin go-aanka sidaas darteed uu sharci darro yahay muxuu ahayto sharcigan uu soo saaray uu dadka ku holinayo uu ku celinayo oo wadamadan ka yimid iyo inaan muxuu ahayto diintana way isticmaaleen oo xoogaa muxuu ahayto iyo qofka meeshuu kasoo jeedo ayadana waa la yara isticmaalay laakiinse labada go-aan hal go-aanay wada gaareen laba wado kala duwan ay soo mareen tii galabtay maantayna soo baxda duhurkii miyay ahayd maaqaan 1 p.m 2 p.m meelahaas maray ahayd ayaa muxuu ahayto go-aanka la gaaray wayna ka qaadan doonaan racfaan sababtoo hadda supreme courtkuba caseka aaday either or labada kor iyo hoosba casekii supreme courtka ayuu aaday marka wixii supreme courtka kasoo baxo ayaa la arki doonaa madaxweynaha uu neefsan laayahay tallaabo madax uu kor usoo qaadaba muxuu ahayto dowladda iyo supreme courtka maxkamadaha hortaagan sababtoo arrimanba dowladdu saddex bay u kala baxdaa awoodda maxkamaduhu ma ahan awood lasoo doorto waa dad marka meesha la geeyo waa awood ka madax bannaan kuwa lasoo doorto sababtoo ah siyaasiyiintu waxay mar walba waxay ka baqaan kursigaaga dib muu heli doontaa ma lagu jeclaan doonaa dadweynaha maxay la tahay sidaas si aysan u noqonin maxkamadaha lama soo doorto maxkamadaha madaxweynaha doorta muxuu ahayto qoladan lasoo doortaa hal mar isku raacda shaqada hal maraa la siiyaa judgeka federaalka ah weligiisna meeshaas kama tago waa for life marna kama tago meeshaasay joogaan judgeka oo muxuu ahayto dowladda hoose iyo kuwaas in la doorto waa laga yaaba laakiin federal judgeska waa lasoo gudbiyaa xagga muxuu in laysku soo raaco waaye oo sharci dejiyayaasha legislatorska ayaa soo gudbiya ayagaa soo ogolaada marka ayagu ma ku hoos jiraan dalada ah inay ka baqaan in awoodooda ama waxay sameyn lahaayeen ay saameyso dadku say usoo dooran lahaayeen iyo inay muxuu taas ay go-aankooda saameyso lagama baqaayo markii hore wadanka la sameynayana saas loo sameeyo waxaa soo haray arrin aad la ii weydiiyey qadar oo muxuu ahayto la takooray oo muxuu ahayto ay kasoo horjeesteen wadamada ku yaala gacanka carabta muxuu ahayto what's going on why people saying be respectful anyway don't mind them iska dhaafo qof kasta afkiisa asaas iska leh waxaan ka hadlayaa arrinta waxaan ku xujinayaa golf crisiska waxa ka jira gacanka qadar ayaa muxuu ahayto la xagliyey oo gees laga maray waxaa gees ka maray sacuudi carabiya baxrayn masar muxuu ahayto imaaraadka carabta kulligood way ka wada safteen maxay ugu soo gabadeen oo dhaheen muxuu ahayto waan idiinta koornay oo waan idiin ceyrinaynaa waxay dhaheen waxay lacag siiyaan oo ay kharash geliyaan muslim brotherhoodka kuwa la dhaho akhwaan muslimiinka oo argagixisada ah oo argagixisada ayay nimankaani lacag siiyaan marka gadaalan u yar celiya marka la rabe sheekada taas waaye waxaa la isticmaalay oy isticmaaleen sacuudiga iyo muxuu ahayta imaaraadka ayaa ugu horeeya qadar waa wadan aada u yar wadamada I think haddaanan statistically xisaab ahaanaan khaldaneen wadanka adduunka ugu taajirsan inuu yahay ama wadamada shanta ugu koraysu ku jiraa wadan aada u yar waayo marka hore wuxuu ku yaalaa meel peninsula ah oo gacan ah oo dhulka xuduud la leh meel aada u yar muxuu ahayto wuxuu xuduud la leeyahay iiraan wuxuu la leeyahay xuduud sacuudi carabiya meesha kaliya oo dhul ahaan ah oo muxuu ahayto xuduudda dhuleed oo qadar leedahayna waa sacuudi carabiya taas strategically markii loo eego muxuu ahayto meesha ay ku taalo qadar in ay muxuu ahayto fakarto oy muxuu ahayto siyaasadeeda dibadda ay aada uga fakarto sababtoo ah qadar
dhul weynna ma haysato waa wadan aadu yar oo military weyn intuu yeesho ma weynaan karo in muxuu ahayto dhul ahaanna meelo badan oo laga soo galo male hadday sacuudiga keliya ee isdiriraan oo kaleeto muxuu ahayto meelo u weecanaya malaha waana midda hadda haysata taas ayaa qadar waxay ku kaliftay independent inay noqoto oo gacanka way ka tirsan tahay oo ay madax banaanaato muxuu ahayto siyaasad ahaan inay madax banaanaato siyaasad ahaan qadar waxay awooday in ay Israa'iil saaxiib la noqoto Iran inay saaxiib la noqoto Mareykanka base-kooda muxuu ahayto xiradooda military oo gacanka ku taala midda ugu weyn waxay ku taala qadar oo meeshaas oo dhan gacanka ku taala Mareykanka saaxiib ayay la ahayd in ay ayadu aysan soo hoosgelin qoladan ay Imaaraadka iyo Sacuudiga horjoog ay u yihiin mar walba remember wadan gadaal markii taariikhda loo celiyo ama siyaasadda muxuu bariga dhexe la eego kale nimankii ugu cadcadaan jiray muxuu ahayto Saddam Hussein ayuu ahaa muxuu ahayto waxaa kaloo jiray Gaddafi oo kale nin laga baqi jiray ayuu ahaa asaguna nimankaas oo dhan waxay rababa ku tagaan waa tageen marka niman cusub hadda soo baxay marka Sacuudiguna muxuu ahayto dhaqaale ahaan muxuu ahayto siyaasad ahaan Mareykanka iyo asaga muxuu ahayto waa fariyo faraanti ma kala baxaan wax alla waxaan isugu jirinna ma jiraan marka qadar waxay samaysay sababtoo ah qadar muxuu ahayto meeshay ku taala darteed way liidataa dhulkeeda dhul weyn ma ahan border fiican ma ay lahan oo waxay kaliya Sacuudiga kaliya ayay waxay la wadaagtaa dhulka oo borderka ama muxuu ahayto dhul meel loo maro leh waa Sacuudiga kaliya meel kale loo maro ma jirto taasa qadar waxay ku kaliftay in siyaasadeeda dibadda ay noqoto siyaasad aan cadaan iyo madow midna ahayn siyaasad markay muxuu ahayto cadaan iyo madow ay ka baxdo cadaan iyo madow waxa waaye ama inta had wax inta u dhaxeeya inaan la helin black and white ma aha siyaasadda qadar cadaan iyo madow midna ma ahan waa siyaasad muxuu ahayto gray ah oo cadaanka iyo madowga u dhaxeysa sababtoo ah qadar waxa ku yaala Xamaas xasuusno waxay leedahay muxuu ahayto xisbi siyaasadeed waxay degan yihiin qadar waa nimanka muxuu ahayto ayaga Israa'iil isku taagan yihiin oo 24/7ka West Media reer galbeedka ay dhahan waa argagixiso waa kan also waxa qadar ku yaala base-ka ama xirada ciidan oo ugu weyn oo Mareykanka ah na qadar ay ku taala qadar taas ayay awooday inay samayso 20 sano la soo dhaafayna dadkeeda muxuu ahayto wadanka xukuma oo wadanka ka shaqeeya waxay sameynayeen siday siyaasad ahaan uga madax banaanaan lahaayeen muxuu ahayto gacanka marka Sacuudiga marka waxa la yiri iyo muxuu ahayto Egypt iyo muxuu ahayto Imaaraadka waxay dhaheen anaga nagu soo daba sujuud haddaan nagu soo daba sujuudi weysana anaga aan soo raaci weysana muxuu ahayto waa ku jareena jarida la jaray qadar dib weyna ugu jiro sabab saan hore u sheegay dhul ahaan aad bay u liidataa oo ayaguna way og yihiin taas Soomaaliya arinteeda gadaalan ka gelina xoogaa I want to explain this qaybta kala rabaa inaan yara sharaxo lirbe yaa kale Turkiga yes Turkiga iyo Iran waxay saaxiib ay la tahay remember qadar waxay saaxiib la tahay Iran waxay saaxiib la tahay Israa'iil waxay saaxiib la tahay Mareykanka waxay saaxiib la tahay Turkiga waxay saaxiib la ahayd nimankan ay la degantahay golofka like taas macnaheedu waxa waaye waa siyaasad bislaatay waaye siyaasad bislaatay hadii laba nin oo is arki karin oo isnacab waxay rabaan baxa sheegtaan isaga soo horjeedaano sida Israa'iil iyo Xamaas oo kaleeto ama muxuu ahayto Turkiga iyo Mareykanka oo kale ama Iran iyo Mareykanka oo kale inaad hal miis inta soo fariisisid oo adiga muxuu ahayto ee gurigaaga ku wada hadlaan oo adiga dhexdhexaadiyahooda aan noqotid siyaasad ahaan adidani kugu jirtaa midaas dan waliba weyna kugu jirto sababtoo ah labadoodii midna muxuu ahayto kuguma soo degdegay adiga labadoodiiba saaxiiba la tahay marka waxa u soo baxday muxuu ahayto qadar Iran oo soo baxday waxa kale oo soo baxay muxuu ahayto Turkiga oo cuntada xitaa ay ku daabulooyaan sababtoo ah cuntada qadar laga cuno dhul yar waaye waa la soo dhoofis muxuu ahayto wadanka dhoofina lagu keenaa oo cunto ay ayaga ay sameystaan ma ahan lacag badan ay haystaan mid kale to qadar waxay sameeyeen wixii hadaayeen
waxay gaaskooda waxay ku sameeyeen liquidated waxay ka dhigeen way yareeyeen oo biyo ka dhigeen methane gaaska oo CH4 ka gaaska la dhaho oo muxuu ahayd kuwa kale oo very complicated oo chemistry-ga ku jiro tiro badan oo dhib badan muxuu ahayd gaaska markuu crude ka yahay ama uu carrada uu yahay in la qaado in la wareejiyo dhul iyo tubooyin aad u waaweyn u baahan yahay laakiin markuu muxuu ahayd gaaska sidii kale to liquid ka ah laga dhigo aad bay u fududahay qaadistiisa qadar taas ayay samaysay sanadihii la soo dhaafay oo marka xagga dhaqaale ahaan way ka maarantaa wadamadan saasna ugama maaranto laakiin haddii gaaskeedu uu crude ahaan lahaa oo tubooyin waaweyn uu u baahnaan lahaa qadar basically xaloosha laga jari lahaa hadda lugta muxuu ahayto goynta hadda la gooyo darteed qadar muxuu ahayto dhib aad u weyn gaari lahaa laakiin mar hore ka tabaabushaysten gaaskoodu waa liquid muxuu ahayto ma ahan midka tubooyinka mara oo qaadistiisa iyo kaydintiisu aad bay uga dhib yar tahay midka tubooyinka maro oo muxuu ahayto dhoobada camal ah kaasi dhul weyn iyo tubooyin waaweyn u baahan yahay marka Iran ayaa u soo gurmatay waxa u soo gurmatay Turkiga Soomaaliya soo hartay marka hawadiya laga xirtay nimanka badiya laga xirtay dhulkiya laga xirtay everywhere laga xirtay Soomaaliya marka maapka waa aragteen muxuu ahayto Sacuudiga wuxuu yiri nama soo mari kartaan hawadiya ka xirteen Soomaaliya qadar Soomaaliya way u baahan tahay sababtoo ah waxa maraya diyaaradaheeda horta Soomaaliya ma xukunta aviation-ka mar walba qaybaha duulimaadka Soomaaliya sidii loo soo qaxay dawlad loo dhiibay dawladahan intaan iska daba yimaanayo oo tirada badan oo Soomaalida ah oo hadba maalin boqol la keenay maalin ilaa hadda qola haysatay ma jiro muxuu Soomaaliya duulimaadkeeda waxa laga xukumaa Nairobi markii uu qaxi dhacay Soomaaliya dagaalkii sokeeye uu dhacay qoladii loo dhiibay ayaa ilaa hadda hayso waxa hadda muxuu ahayto dawladan cusub oo farmaajo madaxweynaha u yahay waxa la dhahoyaa inay soo celiyaan ay rabaan taasa hadda la dhahoyaa saasa jirto laakiin ilaa hadda sidii dawladii Maxamed Siyaad Barre looga markay dhacday oo muxuu Soomaaliya dagaalkii sokeeye uu ka dhacay muxuu ahayto looga qaaday qaybteeda duulimaadka oo Nairobi loogu wareejiyay muxuu ahayto 27 sano ka hor Soomaaliya wali kumayso soo noqonin aviation-ka ama duulimaadka oo Soomaaliya aviation-ka ma xukunto haba yaraatee laakiin se muxuu ahayto Soomaaliya iyo qadar inay ka dhaxayso siyaasad qadar dana ugu jirto Sacuudiga koob maxay sameeyeen Soomaaliya waxay saareen pressure muxuu ahayto pressure ayay saareen waxay dhaheen haddii aadan muxuu ahayto qadar xiriirka aadan u goynin muxuu ahayto lacagtii aan ka ballan qaadnay markuu madaxweyne Farmaajo imaanayo oo xawimaad ahayd kuma siinayno horta lacagay waayo hore ballan qaadayna jirto lacagay waligood keeneen ma jirto lacagta always way ballan qaadaan mana keenaan inta badan marka waxay dhaheen lacagtii aan ballan qaadnay anagu ma bixinayno haddii aadan qadar aadan xiriirka u jirin oo anaga intayada kale oo carabta ah sababtoo ah Soomaaliya way ka tirsan tahay ayaga aadan u jirin sababtay uga tirsan tahay doonaskami waxay uga tirsan tahay animo ogi way ka tirsan tahay marka waxay dhaheen hadaadan u jirin muxuu ahayto lacagtii ma bixinayno taasa la isku Soomaaliya go'aan fiican ay gaartay waxay banaanka ka istaagtay neutral aan nahay oo dhexdhexaad aan nahay ayay dhaheen waxay dhaheen haddii caawinaad anaga nolo kaga baahdo caawinaad anaga waa bixinaynaa muxuu dhexdhexaadin waay caawinaad ma ahaya Soomaaliya wax dhexdhexaadinayso but like siyaasad ahaan waa go'aan aad u wanaagsan waaye Soomaaliya wax badan ayay muxuu masraxa siyaasadeed oo adduunka ay ka maqnayd oo ayada isku maqnayd oo ayada isku mashquulsanayd muxuu inay halkaas ay ka istaagto oo dhexdhexaad ay noqoto Soomaaliya dan ayaa ugu jirta siyaasad ahaaneed dhaqaale ahaaneed not so dhaqaale ahaaneed no dan ugu ma jirto Soomaaliya aad bay u liidataa abaar baa hadda haysata shuban baa ka jira muxuu ahayto wadanku dhaqaale ma leh shaqaale ma jiro muxuu shaqo ma jirto waxyaabo fara badan ayaa wadanka marka khaldan laakiin se inay siyaasad ahaan ay banaanka ay ka istaagaan dan ayaa ugu jirto kabacdi waxaa la yiri dawladda Farmaajo waxaa la yiri waxaan ku siinaynaa 80 milyan go'aankii ahaa ina dhexdhexaad tahay dib uga noqdo way diideen 80 milyan leeya jiibsana carabta seriously aad raqiis yihiin 80 milyan maxay goysaa wadan maxay u goysaa waa pocket change waa lacag jeebka la gashtay aad bay u yartahay lacagta
هذا ويرتاي كمان حتى like أنا إن محويته شخصيا لحويته قدر حرير كلاجرو وإن محويته وكسر جدا سومالي إن دح هاتو ويدح حادثو أيا ونكسن سياسة أهان أي دنو جرتا sababtoo ah awal waxay muxuu loola dhaqmay Soomaaliya qofkii rabo uu jeebka ku ridanayo hadba gees loo riixi karo hadba yes for good reasons muxuu ahayto Cabdirasaaq yes siyaasad ahaan Soomaaliya inay banaanka ay ka istaagto ee dhahdo anagu dhexdhexaadaya nahay hadaa rabtaan inaad liin dhexdhexaadiyo noo imaada anagu caadinkan lama safanin kuwana lama safanin ayna loo ogolaado muxuu ahayto diyaaradaha qadar inay hawada Soomaaliya ay isticmaalaan Soomaaliya siyaasad ahaan dana ugu jirto dawladda marka degana xurmada helaysaa degana more respect gadaala looga istaagaya marka Soomaalida waa baahanahay yes dadka qaar waxay leeyihiin Soomaali hadaan anaga waa baahanahay lacagta yar oo nala siinayo first of all horta marka hore lacagta in lagu siinayo 100% ma ahan oo guaranteed ma ahan haba yaraatee mid kale lacag aad u fara badan ay Sacuudiga ballan qaadeen waligood dollar lacag badan ay ballan qaadeen muxuu ahayd maysa bixinin mid kale nimankan akhwaan muslimiinka ah nimanka soo saarayba oo wahaabiyinta oo Sacuudiga oo lagu eedeeyay everyday waa Sacuudiga qadar waxa in banaanka la istaajiyo aniga sida shakhsiyan aaminsanahay sababtoo ah ninka muxuu ahayd ambassadorka u fadhiya Imaaraadka Mareykanka iyo muxuu ahayd kuwa think tank ah oo muxuu ahayd oo soo saara siyaasadaha xajirka ah muxuu ahayd siyaasadaha xajirka ah soo saara email ay leeyihiin lahaaga lagu sameeyo waa la soo saaray isla hadana wax yar ka bacdi muxuu ahayto qaybta idaacadda oo Turkiga ma ahan qadar ayaa la hagariyay ayagana warar badan la soo saaray haddana wax yar ka bacdi saacado ka bacdi qadar waa la wada jaray marka waxa waaye UAE muxuu Imaaraadku waxay rabaan Mareykanku inuu ayaga la safto inuu Mareykanka ayaga la jiro inuu Mareykanku ayaga ay muxuu ahayto jeebkooda ku jiro qadar waxay rabtaa inay banaankeeda taagnaato qadar waxa waaye anigu si wadanaan leeyahay halkaan aan taaganahay muxuu ahayto inaan banaanka taagnaado ayaan rabaa oo aniga anaa danahayga u fakarayo adi waxay kula tahayna ma yeelay asaga waxay la tahayna ma yeelay ani waxay dan igu jirto ayaan raacaa waxay rabtaba ha ahaatee siyaasadda runtaana waa sidaas adi waxay danta kugu jirtaa la eegaa mid kale always remember mar walba waxa xasuusnaataa dagaalada ka jira Middle East-ga muxuu hayto bariga dhexe ayo muxuu hayto meelo fara badan diin ayaa loo isticmaalaa diintu waxay noqotay gas ama dab aan damaynin oo loo isticmaalo dadka muxuu haysto oo sida muxuu hayto carabta oo cadaanka ahayn adduunka mar walba xasuusno reer galbeedku ma lahan resources ma lahan muxuu hayto khayraadkoodu khayraad ma lahan Afrikana waxa lagu mashquuliyay poverty gaaja lagu mashquuliyay Afrika muxuu ahayd wadamadan muslimka oo lacagta haystana waxa lagu mashquuliyay ayaga in la isku mashquuliyo iyo in diin looga dhiga carqalad oo hadba diin meel hor laga bilaabo qadar waxay awooday marka in aysan madax diineed aysan ku fakirin oo madax siyaasadeed ku fakarto qadar marka the next 20 years 20 sano oo soo socota ama 10 sano soo socoto powerful ay noqon kartaa wax aad u awood badan ay noqon kartaa ayadoo waliba wadan yara sababtoo ah qadar waxay falankeeda qabatay inay isku filnaato siyaasad ahaan dhaqaale ahaan dhul ahaan iskuma filnaan karto sababtoo aad meeshii ku yaalaanba ma ahan strategically dhul ahaan iskuma filnaan karaan laakiin siyaasad ahaan iyo muxuu ahayd dhaqaale ahaan way ka tabaabushaysteen mar hore in aanan ayagana qalinka ah qalin madow iyo gaal iyo muslim kaliya adduunyadan lagu kala bixinayo aan loogu dhigina mar hore ka tabaabushaysteen marka ninka reewqooyiga ah dan uguma jirto in wadan muxuu ahayto aan reewqooyi ahayn madax banaan lacag haysta aan qalin madow iyo qalin cad wax loogu dhigi karin oo diin humaageeda la gelin karin oo awood yeesho dan uguma jirto that's the bottom line meesha ugu dambayso taas waaye marka qadar taas ayaa lagu la dagay intaas ayaan qadar ka galaa marka su'aalo iyo
iyo dadka waxyaabo badan ay soo jeediyeen dowladda farmaajo inay banaanka ka istaagto aad bay u fiican tahay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan no anaga dhaqaale ma haysano dowladdu lacag ma soo gasho hadday wax soo galaanna waa waxaan la xisaabi la sheegi karin muxuu ahayd wadankii hadda la soo dhisooyaa muxuu ahayd in la dhisi doono ilaaha waxay dowladda maxay qaban kartaa waxaas oo dhan ilaahay ayaa og laakiinse dowladda hadda waxay u egtahay inay waxyaabo aad u fara badan ee dardar gelinayso midda ahna inay banaanka ka istaagto go-aan u wanaagsan aad u wanaagsan waay siyaasad ahaan Soomaaliya. Okay, so I'm gonna try to answer dhowr su'aalood qoladiina ay dhaaftay wax yar nimankan travel banki waraa ka soo baxay madaxweynihii go-aankiisii muxuu hayto racfaankii u qaatay waa loo diiday case-kana Supreme Court-ka ayuu aadi doonaa waxaan kaloo rabaa inaan sheego Comey maalin dhaweyto markii muxuu ahayto khamiistii aan soo galay live-ka waa taa idin sheegay the only thing oo ka soo baxay Comey hadalkiisa idin dhahay waxa kaliya waxay ahaayeen nal horle waxay ku shideen Attorney General-ka I don't know ina xasuusataan in kala ma aqaano idin dhahay Attorney General-ka muxuu ahayd qareenka guud ayay tash ku shideen kaliya waxa kaliya la taaban karo oo muxuu ahayd dhageysigan ka soo baxay taas waaya idin iri exactly saasay u dhacday qareenkii toosha ku baxay asagii ku soo qadhoobsatay asaga lagu soo jeestay waa lagu dhagay berrito ayuu hiirin leeyahay asagii berriya la dhageysanooya marka waxa la rabay inuu cadeeyo muxuu ahayd Jeff Sessions berrito waxa waaye muxuu ahayto in waatii markii muxuu ahayto Michael Flynn la qeyrinayo hore oo asaga gadaal uga istaagay uu yiri anigu inaan dambi galo ma rabo recuse aan ka sameynaya banaankan ka taagana haddana madaxweynaha iyo markii la qeyrinayo James Comey waatii baaritaankii ruushku waday waxaa lagu qeyriyay ayaa la yiri waxaa lagu qeyriyaa la yiri muxuu ahayto baaritaankii ruushka u baarayay ninkan ruushka iyo arrimihiisa dhan ani banaankan ka istaagsanahay uu yiri oo aniga ima hoos imaanayso oo anigu lug kuma lihi haddana ninkii la qayriyay muxuu ahayd isla arintii laftirkeeda lagu qeyriyay asagana saameyn buu ku lahaa oo madaxweynaha laftirkiisa ayaa sheegay taas meesha iska qabatay ayaa la yiri waa la weydiinayaa berrito ayuu hiiran ku dhici doonaa hadday wax la taaban karo oo explosive oo wax qarxiya ama wax war weyn ay ka soo baxaan hiirinka tomorrow live aan soo galaa waa idin soo sheegaa haddii kaleeto barnaamijka waxaan ka dhigay khamiis kasta idin soo gelina hadday wax soo kordhaan maalmaha kale waa idin soo sheegaa insha Allah aada u mahadsantihiin guys laakiinse mararka qaarkood markaan ama maalin laba maqlin maqnaado message la igu soo waalaa xagee jirta xagee istaagta shaqo kale ka shaqeeyaa I do other stuff waxyaabo kala duwan aan qabtaa marka superstar uda analysis-ka Somaliland ka soo yeedhay xiriir Somaliland say xiriir ugu jiraysaa muxuu ahayd qadar maba ka dhaxaynin siyaasadda markii hore waxa la jiraa muxuu ahayd qofay siyaasad waa adoo yiri islaan aan qabin aan furaa marka hore wax oo muxuu ahayd jiro oo muxuu ahayd siyaasada ay ka dhaxayso ayaa muxuu ahayd xiriirka loo jiraa say Somaliland ay ugu jiraysaa qadar muxuu ahayd xiriir amiin muxuu ahayd ay u leedahay anaga qadar waa ka safanay sababtoo ah Somaliland wali aqoonsi maysan helin xagga caalamka mid kale qadarna muxuu ahayd xiriirba kama dhaxaynin markii hore haba yaraatee so meel qofaan xiriirka la dhaxaynin see u jiraysaa mid kale tan remember dawladda hawada meesha Hargeysa iyo Muqdisho ee muxuu ahayd maapka ee marayaan diyaaradaha muxuu ahayd ma xukunta Soomaalida Mareykan waxa laga xukumaa Nairobi so Supreme Court-ka ma hubo let's see wixii dhici doona hadii aan leeyahay laakiin hadda rate-ka ama siyaabaha ay wax u socdaan haddadan muxuu ahayd uma eka madaxweynuhu inuu guuleysan doono oo hadda uu heli doono sababtoo maalin walba Twitter lugtu isku sii qabtaa asaga isku sii dilo asaga isku sii muxuu ahayd isku sii cadeeyo markay looyaradiisa I know like qofka asaga u shaqeeya must be the stressful job in the world
shaqada ugu stresska badan adduunka inay tahay waa qofkii Donald Trump u shaqeeyo sababtoo ah sidii wuxuu u dhaqmaa shanjirkii camal wax baad rabtaa inaad sheegtid inaad asaga qurux ka dhigtid aad rabtaa waxaa hagaajinaysaa kabacdi muxuu ahayto asaga intuu soo booday wixii oo dhan isku dhexyaacina oo dhaqina oo muxuu ahayto wixii oo dhan u khalkhalda hadhowti waxa waaye haddana muxuu ahayto crisis control ina gashid oo wixii ay ilaalisid oo hagaajisid idaacadihi aad la hadashid oo dhan marka we'll see waa arki doonaa wixii kasoo baxay tomorrow haddii si waa idinkugu celinaa mar kale Jeff Sessions waa taan hore idinkugu sheegay toosh cusub ku ifay beritaana la wareysanayaa Jeff Sessions haddii berita wax weyn oo explosive ay kasoo baxaan okay this is where I get distracted ma fiiriyo moogtaa waxyaabaha lasoo qoro inta badan sababta aan u fiirinina waxa waaye hadalka iga kala dhuma anyway Cabdirsaaq wuxuu dhahay what happens if you terminated a specialka uu awooda ah inuu ceeriyo ninka loo doortay arrimaha ruushka inuu baaro uu leeyahay madaxweyne ahaan privilege uu leeyahay waaye laakiin haddii uu taa sameeyo muxuu ahayto siyaasad ahaan intuu horta Donald Trump waa ninka wax dhibaba ilaa hadda waa la leeyahay oo lug weyn si weyn uga jiro laakiin markaasayto waxaa lagu kacaya xisbiga jamhuuriga dan uguma jirto inuu special counsel ka ceeriyo oo ninka loo arrimaha inuu baaro loo xil saaray inuu ceeriyo uguma jirto dan haba yaraatee xisbiga lagu kacaya waxaa leeyahay ninkan waa u jeedaan dadweynihii kacayo nimankan remember doorasha soo socoto la sanadka soo socda waa la wada doorasha imaanaysa waa la dooran rabaa nin walba muxuu ahayd habartay ku jira oo maxay kursigiisu ilaashanooya marka ninkii raba inuu lugeeyo waaye ninka muxuu ahayd Donald Trump la safanaya mid kale hadda waxa kaloo jira muxuu ahayd Obamacare ka caafimaadkii lagu bedelayay waxay sameynayaan muxuu ahayd inay gudbiyaan ay rabaan markii bill saas u weyn sanadka loo gudbiyo waxyaabaha laga bedelaa xisbiga minority-ga waqti baa la siiyaa muxuu ahayd waxba lagu daraa waxa oo kale taa la sameeyaa waxyaabahaas oo dhan ma sameynayaan ayaga waxay rabaan hoose inay ku gudbiyaan oo dadkii ay sharci uga dhigaan marka intaasaan ku ekeena afura magaalada geeseed oo kala doonana waa mahadsantihiin habeen wanaagsan